السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo. Hadaba waa galabnimo Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 17 September sanadka 2025. waa barnaamijkii labaad maanta aan idiin soo gudbinayo. waa hubaayna si weyn uga hesheen barnaamijkaygii subaxnimo ee saakayaan idiin la wadaagnay. qodobada barnaamijka galabta aan ku soo gudbinayo waxaa ka mid noqon doona xaaladda magaalada Gaza waa sidee dagaalkii Israa'iil halka ay ku qaaday ma ku guuleysatay oo horumar ma ka samaysay mise waa la iska caabiyay. xaaladda guud sida ay wax u socdaan wixii dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn wararkii laga qoray ayaynu barnaamijka idinkula wadaagi doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu hayaa Netanyahu oo maanta meel lagu maxkamadeynayay ay u daateen dad caraysan oo kasoo horjeeda dagaalka uu ku qaaday Gaza. haddaba qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan idinkula wadaagi doonaa Turkiga oo horey u sheegay inuu joojiyay cilaaqadii ganacsi ee uu la lahaa Israa'iil ayaa waxaa lagu soo waramayaa badeecada Turkigu inay dhooban tahay gudaha Israa'iil. haddaba halkee ka soo gashay badeecadaas warbaahinta Israa'iil oo sir ka shifay. haddaba sheeko la yaab leh oo arrinka ku saabsan iyana barnaamijka qaybta dambe ayaan ku eegi doonaa. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena galabnimo ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirno barnaamijkana wixii warar ay soo kordha waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii labaad ee maanta oo Arbaca aan idiin soo gudbinayo. waa barnaamijkeenii galabnimo. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda magaalada Gaza. sidaynu la soconay oo aanu ugu ducaynaynay dadka reer Gaza in dhibaatada Ilaahay uu ka badbaadiyo oo hawshaasu halkaa bay noo maraysay. haddaba maxaa soo kordhay tan iyo barnaamijkaygii saakay markaa soo gudbiyay kadib markii wararkii aan fiiriyey dagaalka halkaa lagu qaaday Israa'iil taangiyadeeda iyo ciidankeedu maba gelinba. miidiyahay ka qaylinayaan, waxyaabo qarxay gelinayaan, way duqaynayaan, way argagixinayaan. reer Gazana way dareensan yihiin, waxay leeyihiin waxaana soo dirinine adinka imaada ee qabsada Gaza. duqayn iyo baabuur qafilan oo walxaha qarxa laga buuxiyey ayay afarta dhinac ka gelinayaan. talaadadii shalay ku dhawaaqeen inay meesha dagaal ka bilaabeen oo ay gelayaan, laakiin ilaa hadda warbaahinta waxay leeyihiin taangi Israa'iil leedahay oo eriyada ka soo dhawaaday male. marka nimankanu bootay hayaan, afkay ka dagaalamayaan, waa gelaynaa, waa qabsanaynaa, kanaa yeelaynaa. nimankanun waxay leeyihiin imaada, annaga waxaan la baxnay casaa Muusa, ushii nabi muuse, wax walba aa wadaan saasaan u raamsanayna. waa la isgaadayaa. markaasay nimankii fulaynimo banaankaasay ay joogaan, taangiyadoodaa lagu leeyahy. haddaba marka aan idin tuso mid ka mid a warbixinada cajiibka ee arrinkaa laga qoray. Al-Qudus jaridda la leeyahay ayaa waxay soo saartay warbixin ay leedahay talaadadii ciidanka Israa'iiliyiinta ee gumaysigu waxay sheegeen inay markaa cagta marinayaan magaalada Gaza oo weerar dhulka ah ay ku qaadayaan. laakiin warbixino ay jariddu heshay waxay u xaqiijinayaan in weerarka socda uu yahay duqayn xoog leh oo dhinaca cirka ah iyo robot lagu qarxinayo hubaysan ama miinaysan. waxyaabaha taangiyada iyo alaabtan lasoo miineeyey oo ay soo gelinayaan meesha, robotkaas oo ay qarxinayaan ayay kusoo weerarayeen si ay u argagax geliyaan dadka Falastiiniyiinta ah, uguna qasbaan inay ka cararaan halkaas oo ay u sameeyaan inta soo hartayna ay halkaa ku laayaan. ma ujeedaan? talaadadii shalay waa gelaynaa, waa weeraraynaa, duqayn xalay ilaa saakay ilaa shalay way iska duqaynayaan. hadda saakay ilaa hadda 51 qof ayaa Al-Jazeera leedahay ayay marayaan. tirada dadka la sheegay inay dhinteen, dhaawacyada iska dhaaf. xalay tirada waxay lagu xiray 100, marka 150
ilaa inta dhiman caawa haddii lagu daro waa iska wadaan dadkii laynayaan adduunkii oo dhan wuu qaylinayaa hay-adihii samafalka UN-kii dowladihii waaweynaa faransiiskii ingiriiskii kulli waxay leeyihin yurub midoogii yurub kulli waa idiin soo gudbiyey war waxaa kan ka jooga laakiin meesha waxaa la isweydiinaya waxay tahay war muxuu taraa hadal wax ma ka taraa meeshaan netanyahu hadal ma maqlaa may wax hadala u maqlaayo male marka alcumuum meesha marka waxaa ka caddaaday in nimanka kanu ay booloxoofto wadaan booloxoofto waxaa la yidhahdaa waxyaabo maaragtay qofku waxaasaan samaynaa kanaa samaynaa mana ku dhici karo ma samayn karo nimanka gudaha ku jiraa niman naxaaya maa qorigooda alyaasiinka iyo miinooyinkooda iyo afartooda xaboo timirtaa iyo caagooda biyahay wataan nin meel ku sheega male nin walba godu ku jiraa soo galay leeyihiin waa kaas waxba wax qarxa iyo diyaarad iyo meeshaan diyaarad ma la rabee dhulka qabsada kaalaya ku raaxaysta sheekadu marka halkaasee maray baashu marka warkii ugu dambeeyey waa kaas dhanka kale warar cusubaa kasoo kordhay gaza sidoo kale jaridada alqudus waxay leedahay waxaa la jaray internetkii adeega internetka iyo isgaarsiinta deegaanada gaza iyo dhanka waqooyi ayaa la jaray leeyahay oo macnaha wax adeeg oo dhanka isgaarsiinta ah iyo internet oo dhinacyadaas laga heli karo ma jiraana la leeyahay oo dagaalka ayaa si xun u saameeyay internet jar isgaarsiin jar baabuur qarxa ay soo geli diyaarad ku duqee dhul laguma qabsaday leeyahay dadka wax falanqeynaya waxay leeyihin waxaasu dhul laguma qaato adi dowlad weynaan ahaa tiri maraykana ay taageeraa tiri hubaa keensatay taangiya casriyaa wadataa ciidan tababaranaa wadataa diyaarado gurmadaa wadataa ciyaalkan yaryarkaa kaale ka qaada dhulkan qabso ku feystay calankaaga ka taag aawe ma suuragala ma dhici karta nimanka ciyaalka meesha ku jiraa imtixaan waa lagu leeyahay alqasaam nimanka la leeyahay muqaawamada kale nalaguma soo degdegi kara leeyahay marka hadda waa kan ilaa maanta ilaa shalay oo waa weerarnay leeyihiin la leeyahay wax taangiyo galay oo askaru saaro tahay ma jirtaa lagu leeyahay baabuurtaa miinaysan iyo alaabtaasay gelinayaan diyaaraday ku duqaynayaan dadkana media kala hadlayaan waa duqaynaynaa cagtaa marinaynaa ka guura meesha saasay ku hayaan marka sheekadaasaa socota qodobka kale xiisaha leysa ee barnaamijka galabtaan idinkuga hayo wuxuu yahay ninkii netanyahu ahaa muddooyinkanba maxkamada u socotay waa ogtiin waxaa lagu haystaa ninkan laaluush isdabamarin awood ku takrifalid aaminaad la-aan waxaasoo dhan nin tuugaa loo haystaa ninkan tuuganimo iyo alaab badanaa lagu haystaa rashwa haddaa maqasho waa laaluush iyo waxyaabihii ninkan loo dhaariyay waxaan ahayn u galay dadkii oo khiyaanay oo doortay marka ninkan maxkamadii way ku dhegan tahay waxyaabaha uu dagaalkan mar walba uu meel walba ugu boodayo waxaa lagu leeyahay waxay salka ku haysaa jiritaankiisa isaga hadduu dagaaladani waxaan joojiyo xilka laga qaado liintuu ku cabayaa xabsiga halkaasaa loo dhaadhicinaa mafaab nag meeshaas ninkan marka waxaasuu ka cararayaa marka maanta waxaa dhacay oo arbacaa maxkamadu lahaa maxkamadii markuu tegay doodii maxkamadoo socoto hawshii oo socota ayaa meel maxkamadu ay leedahay oo makaan istiraaxa la yidhaahdo oo markii xoogaa lasoo kululeeyo maxkamadda oo laga soo baxo lagu nasto lagu laabto ayay u daateen dadkii mudaaharaadka sameynayay haddaba marka aan idin tuso marka hore warbixinta laga qoray sheekada qoysaska dadkooda lagu haysto gaza ayaa waxay xoog ku galeen hoolkii maxkamadda xilligii lagu guda jiray xilli uu joogay halkaas netanyahu kanaalka 12 la yiraahdo israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa wuxuu qoray leedahay aljazeera in qoysaskaasu ay xoog ku galeen hoolka istiraaxada ama hoolka nasiinada ee maxkamadda xilli ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo maxkamadda dambiyada caalamigu ay dalbanayso in loo soo gacan geliyo lagu qasbay inuu halkaa isaga cararo markii dadkii ay halkaa u soo daateen oo fiirsada dadkii markay meesha ku soo daateen ninka fogatax isaga iyo kooxdiisu waa carareen ayda tuso videoga laga soo diyaariyay sheekadaas oo isaga iyo kooxdiisa markii loo soo daatay halkaas
יש פה פרקליטים שאמורים לשמור על... לא, גם זה גם תפקיד שלכם. יאללה חבר'ה, בואו לצאת. יאללה, לצאת. את ההחלטה של השופטים. משמר בתי המשפט. לכל מי שתודה, אבי, חלש, ציוני ידוע, עזר, יש לנו שם רגע, יש לנו שם waayahay marka jawiga guud ilaa hadda marka waa kaas dagaalka ay nimankan sheegayaan waa duqayn aan loo aaba yeelin diyaaradaas dee waxay isaga dhicinayaan ma haystaan reer Gaza diyaaradu waxay isaga dhicin karaan ma haystaan ninka kan Netanyahu leen maxkamadayntiisu saasay u socotaa isaguna meel kale oo ku baxsada male ilaa dagaalkan inuu sii wado si uu isagu isu badbaadiyo haddaba marka sheekadaas halkaasi maray qodobka ugu dambeeya barnaamijka galabta aan idiin soo gudbinayo wuxuu yahay qodob aad u xiiso badan Turkigu waxay joojiyeen mar hore xiriir ganacsi alaab Turkigu leeyahay in Israa'iil la geeyo Erdogan amar ku bixiyay Erdogan hadda shirki ka dhacay Qatar markii uu ka hadlay waxyaabihii uu ku faanay waxa kamid ah in dawladdiisu ay horey u joojisay arrinkaas inay cilaaqada ganacsiga ka jirto laakiin warbaahintii Israa'iila waxay soo bandhigeen sirri ka sifeen ay leeyihiin badeecadii Turkigu waat Israa'iil dhoobanta Israa'iil badeeco ay aad u jeceshahay Turkiga ka keenta badeecadaasi waxaa lagu tilmaamay ilaa bishii 3,000 oo container wax ka badan inay Turkiga kaga iman jirtay haddana waxay leedahay sidii loogu timaada Erdogan muxuu ka qaylina waa kana Turkiga noo keenta markaas xagee la soo mariyaa Turkiga doomihii iyo wixii badeeca oo soo baxay oo Israa'iil u socda la xanibay Soomaa Greega la geeyay shirkad Greega gadatay Greega laga gaday Greegi wadankooda geeyeen kadibna waxa loo soo raray Israa'iil xogaa yar lacagta ku kordhaysa bas intaas oo wareegaas leh marka waxay leeyihiin maxay tahay nimankan Turkida Erdogan muxuu naga qabtaa annaga shirkadaheena soo gadi jiray waa keeni jirnay intii bas hadda shirkad Greega iyo kuwa Turkiga Greega la geynaya la soo qaadaya marka maxaa la faa'iiday leeyahay marka sheekaya blaway aad tuso marka warbixinta sheekadaas laga qoray jariirada la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa maanta soo heshay xogtaas oo daabacday waxay leedahay waxa la soo bandhigay Turkiga waxyaabaha uu dhoofiyo in ay marka wali Israa'iil ay ku sii socdaan oo marka Israa'iil ay helayso inkastoo go'aan lagu gaaray in la joojiyo arintaas waxaana la sheegay in bedel loo helay toos in looga keenayo dhanka iyo Yunaan ama Greega xaqiisa in Israa'iil looga soo gelinayo marka waxay leeyahay maxaa u baahnaa Erdogan ha qeylqeyliyo maxaa yaala ma wuxuu dhihi karaa badeecada wadankayga maba la gadayo muu dhihi karaa may badeecadu waa la gadayaa lacag ay u baahan yihiin laakiin Israa'iil kama soo gadanayso dad kale ka soo gadanaya Israa'iil la keenaya خلاص maxaa marka la qari waxa beeshiya la bale marka sheekadaas ayaduna soo korortay wixii warar soo korna hadana waa idin soo ururin doonaa